banaanbaxan garabka lagu siinayay Ilhaan Cumar ayaa waxa uu kulmiyay dadweyne ku kala duwan midabka, dhaqanka iyo diinta, balse ku midaysan inay dhinac uga soo wada jeestaan nacaybka ka dhanka Ilhaan Cumar. Jilani Xuseen waa gudoomiyaha hay'adda u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Mareykanka ee CARE garabkeeda Minnesota. waxa uuna VOA u sheegay in dadweynaha Minnesota ee doortay xildhibaan Ilhaan Cumar ay difaaceeda diyaar u yihiin. إلهان واحد دورتي شعبك دجن مينيسوتا شعبك سو أي وبديهن دد أنا سومالي أنا مسلمين هن شعبك سو ما أنت كحماده سيد عيد والبوق حمان لهاد وحمد حوينه السمية يجانا ما أنت صباح يجانا ما أنت تاجرية أو دفاعية أو هو استاجية حلبان كذا وليبنا ما ها أورير مينيسوتا ما هي أمريكان كأردن برونتي لقى حماده ولا جسور استاجي. جينيفر كونن waxay ka mid tahay taageerayaashii Ilhaan shalay u soo baxay kamana mid aha dadka degan degmada laga soo doortay xildhibaan Ilhaan Cumar balse waxa ay sheegtay inay Ilhaan taageero u noqotay tan iyo markii loo doortay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota waxaana Ilhaan ku taageeray bay tiri sida aan gabashada lahayn ay runta uga hadasho mana doonayno in iyada iyo dadka kale ee runta ka hadla la aamusiyo. waxaan aaminsanahay waxa ay Ilhaan Cumar u taagan tahay waxaana u baahannahay in aynu ka difaacno nacaybka gaar ahaan kan uga imanaya ee uu abuurayo madaxweynaha. Sumaya Ahmed waa ardayada ku jirta waxbarashada dugsiga sare waxayna ka mid ahay dadkii ugu horeeyay ee goobtan banaanbaxa shalayto isugu soo baxay. waxa ay sheegtay inay boorka ay wadato ay iyadu gacanteeda ku soo sawiratay ayna rumaysan tahay in Ilhaan Cumar ay iyada iyo gabdhaha la midka ah ay u tahay qof ay ku daydaan. Ilhaan waa walaasheena maalin kasto inoo istaagtaa dadkeena caawisaa wixii dadka naga sheegaan maalin kasta u istaagtaa samaanta anaga inaan ayada caawina rabnaa waxa ayada noo sameysay inaan ku caawina. dibadbaxan Ilhaan lagu taageerayo ayaa isna waxaa dhinaca kale ka hareer socday mid lagu taageerayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo socdaalkiisa Minnesota waxaana taageerayaasha madaxweynaha goobta joogay ay ku qaylinayeen madaxweyne 4 sano oo kale ayaan ku